daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka Falastiin iyo Israa'iil maanta oo ah 10ka Oktoobar 2023 Israa'iil waxay magaalada Qasa ku soo rogtay cunaqabateyn dhammaystiran waxaana ay ka jartay cuntadii biyihii iyo sidoo kale korontadii iyo shidaalkiiba laakiin Falastiiniyiintu waxay maxaabiis ahaan u haystaan 100 ruux oo isugu jira rayid iyo ciidanba waxa ayna ku hanjabayaan inay nolosha dhaafin doonaan dadkaasi in ka badan 300 oo kun oo ciidankeed ah ay Israa'iiliyiintu u diyaariyeen inay dagaal galaan shacabkana waxa loo habeenayaa qayb qaadashada dagaalkaasi dunida ayaa walaac ka muujisay xaaladda ay haatan ku sugan tahay magaalada Qasa ee arlada reer Falastiin waxaana xoghayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres uu sheegay inuu ka niyad jabay tallaabada Israa'iil ay cunaqabateynta ugu soo rogtay magaalada Qasa dhimashada dadka Falastiiniyiinta ayaa ku sii socotay ilaa haatan 600 oo qof iyadoo dhaawacna kor u dhaafay 3000 Netanyahu ra'iisul wasaaraha Israa'iil waxa uu sheegay inay hadda bilaabeen howlgalka military ee ay kaga argoosanayaan Falastiiniyiinta muddo ku dhow 17 sano marinka Qasa ayaa ku jira go'doon ay Israa'iil ku soo rogtay waana aag ay ku nool yihiin halkaasi dad 2.3 milyan oo qof marar badan oo kor u dhaafay 5 jeer ayay duqeymo kala duwan ka fulisay Israa'iil halkaasi waxaase xusid mudan in duqeymayaashan ugu dambeeyay ay Israa'iil si gaar ah u bartilmaameedsanayeen kaabayaasha dhaqaale ee muhiimka sida dhismayaasha dhaadheer iyo jidadka halbowlayaasha u ah magaalada Qasa dhanka kale Mareykanka oo lagu dilay 9 ka mid ah muwaadiniintiisa weerarka ay ku soo qaadeen Israa'iil Falastiiniyiintu ayaa sheegay inay si dhow la socdaan xaaladda isla markaana aanay ka labalabeen doonin difaaca Israa'iil waa warbaahinta afka shacabka iyo anigoo ah amiirka oo idla socodsiinayay wararkii ugu dambeeyay ee ka soo kordha marinka Qasa waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo salaamo alle